kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo caalamka nagala socotaan halkan waa Hardware News daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo la yeelan doono gudoomiyaha ololaha xisbiga mucaaradka Hawd Injineer Axmed Xirsi Ducaale oo kula kulanay magaalada Hargeysa gudoomiye markii uu ku soo dhawaado Hardware News aad iyo aad baad ugu dhawahay aad baad u mahadsantahay Cabdirasaaq iyo Hardware News aad baan idinkaga mahadnaqayaa gudoomiye waxa jira waqti dhow ayad wadanka timi inta aan gudoomiyaha ololaha xisbiga mucaaradka Hawdna waa tahay mudada aad joogtay maxay isbedelay xisbiga aad ku keentay ku hirgalay muddo 2 bilood oo hadda wadanka jooga waa saad sheegtay gudoomiyaha ololaha heer qaran ee xisbiga oo cid ayaan ahaa markaan muddo ilaa 3 bilood ka horna waan ahaa ilaa hadda 5 bilood intii uu gudoomiyuhu magacaabay gudoomiyaha xisbiga murashaxa madaxweyne injineer Faysal Ali Xuseen labada bilood oo wadanka joogay iyo intii hore aan xagga dibadda joogay inta runtii shaqooyin badan baan qabanay waxa ugu horeysay shaqooyinkii dibadaha aan isku soo xidhnay hadday tahay North America hadday tahay Europe iyo hadday tahay Australia ilaa Africa runtii aanu connection wanaagsan aanu ku sameynay xubnaha xisbiga markaan imi halkan hawsha ugu horeysa aan ka bilaabay waxay ahayd in isbarashadii kadib markaan xisbigii maaragtay dadkii hogaankii xisbiga oo aan ugu imi gudaha aanu isbaranay waxay ahayd inaanu u diyaar garowno hawsha ololaha ee markaa 2 bilood ka harsanayd oo hadeerna wax badan aan biliya wax ka harsan yihiin marka runtii diyaar garowgaasu ma sahlana marka aad bilaabayso shaqo adigoo ka yimi wadan kale aan wadanka marka ahayn runtii isbarashada waxaanu ka bilownay inaanu qof walba ogaano bal xilka uu hayo iyo shaqada uu leeyahay halka markii aanu ka soo dhaafnay qof walba aan isbaranay mas'uuliyiinta xisbiga waxaan bilownay marka inaanu dhisno garabadii ololaha xisbiga ilaa heer gobol tiina alxamdulillah waan ku guuleysanay waxaanu dhawaan insha Allah taala magacaabi doonaa gudida heer qaran xisbiga ololaha xisbiga oo aniga ila shaqeyn doonta waxaanu runtii ku guuleysanay inaanu aad iyo aad u soo kicino sumcadda iyo dhaqdhaqaaqa xisbiga inta uu aad u soo kaco ayaan ku guuleysanay hawlii ugu adkaa ee intaan soo maray waxa kamid ahayd arintii dhawaan aanu soo dhaafnay ahayd madaxweyne ku-xigeenka runtii oo aanu aad uga shaqeynay gudoomiyaha xisbiga doorashadiisii ahayd inuu doorto musharax ku-xigeen ka soo jeeda gobolada bariga oo runtii hawl badan aanu kala qabanay gudoomiyaha ka caawinay oo maartay kala shaqeynay guulihii xisbigu gaadhay bay kamid ahayd inta 2 bilood aan joogay runtii aad iyo aad wax badan oo ayaan ku soo kordhinay baan oran karaa inta 2 bilood aan joogay xisbiga gudoomiye marka laga tago diyaar garowga aad soo sheegtay inaad ka soo shaqeyseen in waxa jira waqti xaadirkan xisbiyada Soomaaliland waxay diyaar garow adag ugu jiraan doorashadii madaxtooyada Soomaaliland oo wax ka yar 40 shay ka harsiin marka laga tago hawlaha xisbiga gudihiisa aad ka qabateen maxaad ilaa aan ugu diyaar garowdeen doorashada madaxtooyada waqtiga kooban ka harsantay waxaan ugu diyaar garownay horta waanaga ku sheegay oo gudiyada ololahaanu dhisnay xafiisyadii gobolada kuwii degmooyinka in badan oo kamida dalka ayaanu dhisnay anagu sida raggan xoolihii dawladda wata ee lankruusarada maxaan ku idhaahdaa bixinaya maanaan bixin lankruusara oo maanaan siinin qof walba laakiin waxaanu ugu diyaar garownay inaanu dadka qulubtoodii iyo maskaxdoodii aanu hanano inaanu reer Soomaaliland ka dhaadhicino inay u baahan yihiin maanta midnimo Soomaaliland loo baahan yahay in aan loo baahnayn qofku maanta maxaad heshaa ee loo baahan yahay qarankanu sidoo u sii jira qarankanu sidoo u noqdaa qaran taabagala diyaar garowgaasaanu galay runtii aad iyo aad baan qulubta dadka u kasbanay baan oran karaa xisbiga u cid ummadda reer Soomaaliland dhammaan bari iyo galbeed waxay sugaysaa xisbiga u cid maalinta uu ololaha bilaabi doono oo ah maalinta ugu horeysay ololu bilaabmayo anagu aan ugu horeyno diyaar garowga iyaguna runtii aad iyo aad buu ka dhismo ahaan iyo ka maxaan ku dhahay material ahaanba aad baan u diyaar ugu nahay ololaha inaanu ka qayb galno dabcan xisbiyadu waxay soo bandhigeen barnaamijyadii ay ku galayeen ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland idinku ilaa alaan meedan soo bandhigin barnaamijkiini goorma idin qorshaysan inaad bulshada hor keentaan anagu horta barnaamijkayagu wax la iska qorqoray oo ma garanaysaa barnaamijyo hore laga soo xigtay maaha waa barnaamij cusub
oo experience-ka iyo khibradda uu xisbigu leeyahay aanu ku soo dhisnay waa barnaamij political program aanu runtii qaab aqooneed aanu u soo diyaarinay oo waaqica Somaliland ka turjumaya waa political programka ugu dheer ama ugu faahfaahsan saddexda political program ee la soo magaranay saddex xisbi ay kala leeyihiin waad ogeydeenoo labada xisbi kale mid waliba wuxuu soo minguuriyey wixii haru ay u lahaan jireen xisbiyadii hore qolada wadanina udub bay soo minguurisay qolada kulmiyana kii maxamed axmed siilaani uu ku galay 10kii ayay nuqul ka soo qaateen soo qorteen soo gaabiyeen laakiin anagu wuxuu ahaa political program runtii intaba ka duwan waxaan soo bandhigi doonaa caawimay habeen dambe hadii ilaahay ka dhigo Mansuur ayaan ku soo bandhigi doonaa ummadda reer Soomaaliland way nala arki doontaa marka muxuu dheeriyay barnaamijka soo bandhigaysaan ama barnaamijyadeedka xisbigiinu marka laga barnaamijyadeedka xisbigiina sheegtay inaad soo bandhigayso muxuu dheeryahay barnaamijyada kale xisbiyadu soo bandhigeen ee leedahay wuu kaga duwanay wuxuu dheeryahay baan oran karaa runtii farqad kasta ama qodob kasta oo qodobada aanu ka hadalay annaga way arki doonaan reer Somaliland political program kayaga buugayaga habeen dambe markaan soo bandhignay qodob kasta oo reer Somaliland haday tahay caafimaadka waxyaabaha looga baahan yahay haday tahay amniga haday tahay dhaqaalaha mid walba anagu waanu kaga wanaagsanahay waanu kaga faahfaahsanahay wax dhaba baanuna ka hadlaynaa waxyaabaha aanu ka hadalay aan ilaa iminka ka hadlin waxa kamid ah dawlad wanaaga anaga ku jira political program bayaga dawlad wanaaga ku kamida waad ogtihiin dhowr iyo 60 wasiir ba maanta ay maraysa dawladda kulmiye maanta joogta anagu waxaan soo bandhigaynaa dawlad kooban oo aan 20 wasiir ka yar 16 ilaa 18 wasiir inta u dhaxaysa ah waxaan soo bandhigaynaa maamul daadijin wax la yiraahdo inaanu gobolada iyo degmooyinka iyo uu noqoto dawladeedu dawlad aan ku koobnayn Hargeysa aan wasaaradaha gobolada u qaybino aan maxaan ku rahaa gobolada empower garayno oo degmooyinka iyo goboladu ay dhaqaale gaar ah mid waliba uu yeesho marka waa la arki doonaa waxa ay kaga duwanaato markaanu soo bandhigno political program-ka iyagu dhawaan xisbigiinu wuxuu soo xulay musharaxii madaxweynaha ku-xigeenka xisbigaas ee Fasax Alwaraabe ku-xigeenka uu noqonayay in dabcan musharaxaasi wuxuu ka soo jeedaa gobolada bariga Somaliland ilaa muddadii aad soo xushan musharaxa ilaa maanta maxay isbedelay eed ka haysan xisbiga u cid taageeradii ku lahaa gobolada bariga horta guul bay ahayd Somaliland oo dhan u soo hoyatay waanaan hambalyeeynayaa musharaxa iyaga injineer Faysal Ali Xuseen iyo musharax ku-xigeenka Professor Ahmed Abdi Muuse Abyan labadaba waan hambalyeeynayaa shalayna waxay ahayd maalinta ay shahaadada qaateen waxaanu ahayn xisbiga ugu horeeyay murashaxa iyo murashax ku-xigeenka application-kooda ama CV-gooda gudbiyay u gudbiyay gudida doorashooyinka heer qaran taas waxay ku tusinaysaa inay ahaayeen laba nin oo runtii labadaba faylkooda uu clean yahay oo uu magaranaysaa runtii markiiba laga jawaabay la aqbalay markiiba sida loo aqbalay marka waxaanu iska bedelay dhowrka cashiya hadda uu magacoonaa madaxweyne ku-xigeenku waxaan oran karaa yacni haddaanu taagnayn boqolkiiba 50 dadka reer Somaliland ay ahaayeen taageerayaasha xisbiga UCID maanta boqolkiiba 70 ama 75 waxaan oran karaa waa taageerayaasha xisbiga UCID gobolada barina waxaan aaminsanahay inaanu 100% haysano gobolada bari afarta gobol bari waa Saaxil Togdheer iyo Sool iyo Sanaag afarta gobol baynaanu anagu taageeradooda maanta haysano ayaan aaminsanahay waxa ugu dambeeyay aan oran karaa taageerada aan ku xaqiijin karaa inay taageeradaas jirto xalay 12 habeenimo ayaa waxa isoo wacay suldaanka guud ee gobolka Sanaag iyo suldaanka maxaan ku dhahdaa gobolka Sool iyagoo runtii iiga noogu bushaareynaya inay xisbiga UCID uu taageerada uu ku haysto goboladaas marka waxaad ka dareemaysaa ilaa xadka marka dadkii ku hambalyeynayaan waxaad ka dareemaysaa taageerada غير caadiga ah ee uu helay murashax ku-xigeenkan iyo xisbiga UCID labaduba dabcan xisbiga UCID muddo wuxuu waday in musharax madaxweyne ku-xigeenka xisbiga laga dhigo wasiirka hore wasaaradda biyaha Somaliland Baasha Ali Jaamac balse muddo kadib uu isbedelay musharax kalaad keenteen xagii uu isbedelkaas ka dhacay waa jirtay Baasha Ali Jaamac muddo isagiyo gudoomiyaha xisbiga ay heshiis ku ahaayeen inuu noqdo musharax ku-xigeenka ayaamihii ugu dambeysay oo waqti aad u yara
ayaa aanu haysanay aan odhan karo waxaan ka badnayn 48 saacadood aan ka badnayn ayaa dee qofka isaga horta shakhsiyan hankiisa iyo choicekiisa iyo doorashadiisa leh isaga iyo beeshiisa ayaa go'aan wada gaadhay go'aankaasay noo keeneen go'aankaasuna wuxuu ahaa in baasha cali jaamac uu ka fadhiisto totally siyaasadda ama xisbi mucaarada oo cid ha noqdo ama xisbiyo kaleba ha noqde inuu siyaasadda ka fadhiisto arrintaana uu tolkii soo go'aamiyey isaguna uu ku raacay go'aankaasay noo keeneen way jirtaayoo aniga iyo rag kaloo badan oo siyaasiyiinta xisbiga ka midiba waxaanu aaminsanayn inaanu go'aankaasu ahayn go'aan haruu jiray ee uu ahaa go'aan muddo gaaban ku dhashay hargeysa iyo maxaan ku dhahdaa magaalada hargeysa ka dhashay laakiin haddana waanu qaadanay maadaama tolkii ay noola yimaadeen baashana dee nin runtii annaga qadarin nagu le weeye ilaa iminka haruuna noogu lahaa dee go'aankiisana waanu la qaadanay marka musharaxan haatan la keenay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid baasha cali jaamac wax talaama ku lahaa marka baasha cali jaamac shakhsiyan wax talaa kuma lahayn laakiin dee reerka keenay waa laba ninoo dee isku reer ka soo wada jeeda odayadii salaadiintii garaadadii ayaa markii ay go'aankaa ku fadhiisiyeen baashe ayay dabeedna bedelkiisii brofesor axmed keeneen kaasoo ay u arkayeen inuu dee kaga munaasabsan yahay maanta cid walba oo kale oo ay kasoo doorteen dee reerkii guud ahaan marka isagu shakhsiyan dee wax talaa kuma lahayn laakiin dee taladaa uu reerkaba ku aqbalay inuu ka fadhiisto siyaasadda mid lamida buu dee ku aqbalay inuu axmed brofesor axmedna noqdo murashaxa taas mid lamida buu ku aqbalay marka musharax madaxweyne ku-xigeenkii ee xisbiga ucid ee dhawaan soo xusheen tala reer buu ku yimi markaasuma waxa weeye marka hore horta dee talada go'aanka waxaa lahaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga ayaa lahaa go'aanka inuu ka doorto gobolada bariga inuu ka soo doorto musharax ku-xigeenkiisa go'aanku kaasuu ahaa muu qarin dee muddo dhowr sannadood ka hor buu sheegay go'aanka labaadna wuxuu ahaa in musharax la isku raacsan yahay oo dee reerihii iyo degaamadii iyo hadday tahay qaybihii siyaasadda ee reerka iyo hadday tahay qaybihii dhaqanka ee reerka iyo qaybihii shacabka caadiga aha intaba siyaasad kuleh taageero wanaagsan ku leh in magaranaysa uu qaato marka dee wuxuu ahaa nin runtii dhinacyadaa taladooda o dhan ka wada yimi buu ahaa brofesor axmed maadaama musharaxiinii madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid uu tala reer ku yimi miyaan la odhan karin musharaxii madaxweynaha xisbiga faysal cali waraabe qabyaaladii inta badan kasoo horjeeday isagaaba gunta kasoo dhisayn qabyaalada lagu dhaqmo horta tala reer marka la leeyahay waxa weeye degaan baa laga hadlaa anagu wax leeyahay degaan anagu reer ma nidhaahne wax leeyahay degaanku dee taluu leeyahay oo dee taageeruu leeyahay oo taageerayaal siyaasadeed buu leeyahay oo taageerayaal dhaqan buu leeyahay oo marka choicekii madaxweynaha mustaqbalka ee faysal cali xuseen markuu deegaanka choicekiisii uu ka doortay ama doorashadii uu deegaanka ka doortay haddii dee nin la isku raacsan yahay oo kalsoonidii reerka iyo kalsoonidii deegaanka iyo kalsoonidii maxaan ku dhahdaa reer somalilan haysta haddii la keenay macnaheedu maaha in la keenay nin qabiil soo doortay maaha macnuu caynka maaha faysal cali xuseenna in badan buu ka hadlaa qabyaaladda laga hadlayaana maaha ta maaha kalsoonida qofka aynay dadku kalsoonida qofka maaha waxa weeye in qof lagu soo doorto ama masab lagu siiyo waata maanta kulmiya uu dee ku magacaabo xilalkiisa ee ah in adeerkiibaa xilkan hayn jiray maanta mar haddii laga bedelay nin reerkooda ah la keeno qabyaaladda laga hadlaya waata maanta wasiirada reer somalilan ee dowladda kulmiya ay ku geeyaan shaqada qofka reerkooda ka soo jeeda ama qofka gurigooda ugu yimaada ee dadkii kale dhallinyarada ahaa ee jaamacadaha ka baxa ee waddanka joogay ay ku waayeen shaqada qabyaaladda laga hadlaya waa taas laakiin qofka taageerada kule degaanka maaha qabyaaladdu taa maaha gudoomiye waxaa jirtay in dhawaaneyn aad kalsooni kala noqoteen ururo guddiga doorashooyinka kala shaqayn jiray sidaa doorashadu si fiican uga qabsoomi lahayd in guddiga doorashooyinka somalilan baa mas-uuliyaddii doorashadu saarantay kalsooni intee leeg bad iyaga ku qabta guddiga doorashooyinka qaranka anagu kalsooni wanaagsan baanu ku qabnaa kalsooni 100% baanu ku qabnaa laakiin waxaanu aad iyo aad
ugu madaxweynaha qaranka iyo mas-uuliyiinta qaranka ee xilka maanta haya iyo hadday tahay ciidamada amniga hadday tahay ciidamada qaranka hadday tahay waxaanu aada uga codsanaynaa in dee baawarka ay leeyihiin guddiga doorashooyinku waxa weeye waa ciidanka qaranka booliska iyo ciidanka qaranka iyo sharciga labadaasoo iskaashaday oo ayay dee baawar ku yeelanayaan haddii kale dee 7 qof ama waxay noqonayaan dee dad aan magaranaysaa dee ashkhaasa marka institutionka ay leeyihiin guddiga qaranku sharciyadda ay leeyihiin in dawladdu ku ilaaliso oo lagu empower gareeyo oo ay noqdaan kuwa aan ma garanaysaa dee lagaga bixin iyagii keliya oo baawarkii loo isticmaalin baawar dhinac ka raran oo ma garanaysaa dee xisbiyadii ay kaga awood badan yihiin guddidii qaranka ay kaga awoodsan dee kulmiya uu maanta samaynayo uu mar walba dee markuu gobol tago ama degmo tagoba uu isticmaalayo ama maayarkii gobolka ama maayarkii ama badhasaabkii gobolka ama dadkii qaranka u shaqaynayey uu isticmaalayo ay 100 jeer intay digniino soo saareen tiraba 2 jeer 3 jeer bay digniino siiyeen guddiga qaranku xisbiga wadani iyo kulmiye laakiin dhagumay dhigin maanta ugu dambaysa dee shirbeeladada way ka qayb galayaan shalay inay shirbeeladada guddida qaranku go'aan bay ka soo saareen inaanay tegi karin ilaa inta doorashada ka hadhay guddoomiyeyaasha xisbiyadu inaan olole la samayn karin taa waxaan u baahannahay in madaxweynaha qarankuna wuxuu soo saaray wareegta shalayto wareegtada uu soo saarayna way caddayd shacabka reer somalilan oo dhan bay ku socotay annaguna waanu qaadanay wareegtada laakiin xisbilxaakimka ayaa u baahan inuu dhegaysto madaxweynaha qaranka inuu dhegaysto shuruucda iyo qawaaniinta dalku leeyahay inuu u hoggaansamo maanta shirka bariga ee beesha biciida ay ku qabsanayso gobolka sanaag anigu waxaan ahay nin beeshaa ka soo jeeda waxaanay maanta xilka ugu sarreeya marka la yidhaahdo doorasho la gelayo xilka ugu sarreeya beeshaasu hayso ninka haya baan ahay way jiraan inama afhayeen xisbiyada kale ka ah ama wasiir dowlayaal ka ahi laakiin xilka ugu sarreeya beesha maanta aniga haya maanta halkan aan joogaa waxaan u joogaa waxa weeye sharciga ayaan ilaalinaya sharcigaanu ilaalinayna waxa weeye inaan xisbiyadu qaranku aanay ku milmin beelaha xisbiyada qaranku inaanay beelaha ku milmin anigu beesheedii baa shiraysa laakiin mas-uul qaran baan ahay inaan kala saaro beesheeda shirkeeda iyo mas-uulka qaran laakiin intii kale xisbiyada kale ka tirsanayd iyo rag kaloo aan reerka ahayn oo siyaasiyiiniba waxay maanta taagan yihiin shirka ka socda runtii dagaar ka socda waan u hambalyeynayaa beeshaa shirtay inay go'aamo wanaagsan soo saaraan oo ay masiirkooda kaga tashanayaanna waan ku hambalyeynayaa gudoomiye waxaa jirta xisbiga mucaaradka ee wadani ee dhigiina ah inta badan wuxuu ka dardaar wariyaa oo uu sheegaa inuu ka baqanayo in xisbiga kulmiya doorashada ku shubto idinku fikradda ma la qabtaa annagu lama qabno fikirkaas way jirtaa sansaan u eg xisbiga kulmiya inuu ku shubanayo oo shacabka reer somalilan dham waa arkaa siyaasiyiintuna way aragtaa laakiin annagu waxaanu aaminsanoo kalsooni wanaagsan ku qabnaa guddiga doorashooyinka waxaanu kalsooni ku qabnaa muraaqibiintayada aanu dirsan doonno waxaanu kalsooni ku qabnaa shacabka reer somalilan inaanay maanta masiirkooda iyo somalilan siday u ekaan doonto aanay siisanaynin shilimo waa jiraa xisbiga kulmiya lacag buu la ordaya gudoomiye maxaa calaamadee ku muujinaya in xisbiga kulmiya uu ku shubanayo doorashada ee adiga ku muuqda sheegaysa waxa muujinaya oo dee taasi maba laha doondoon ma laha maanta cashuuraha somalilan laga qaado hadday tahay ta berbera ka soo baxda hadday tahay ta gobolka aynu joogne maroodijeex ka soo baxda iyo hadday tahay ta gobolka gabiley ka soo baxda boodharrada ugu cashuuraha badan leh somalilan maayaradoodu dee galabtii subaxii ta laga soo qaado lacagta laga soo qaado islaamaha bacadka fadhiya galabtii waxaa la geeya xafiisyada ama maxaanku idhaahdaa nimanka u ololeynaya ama guddiga ololaha ee xisbiga kulmiya lagu shuba oo loo shubaa maayarkiibaa ku jira guddida ololaha waad og tahay oo solteelka wuxuu ku jiraa guddida ololaha ee xisbiga kulmiye maayaradii oo dhan baa ku wada jira waxa weeye way teerigaraynayaan iyagu inay ku shubtaan sharcigii bay dhaafeen waxay dhaafeen wax kasta oo qawaaniintii doorashada ayay dhaafeen marka iyagu way teerigaraynayaan wasiiradii bay dabada ka riixayaan oo wasiir walba leeyihin haddaad doonayso inaad wasaaraddaada sii adkaysato waa inaad reerkiinnii aad u tagtaa
annaga kuwaanu isu xignay maanta jooga dagaar ee ordaya hadday wasiirada yihiin iyo hadday qaybta kale ee xisbiga ka socotay yihiinba dee waxay u ordayaan oo reer ay lacagtii kulmiye iyo lacagtii qaranka u sidaan oo u qaybinayaan waxa weeye inuu kulmiya soo baxo oo uu ku soo baxo weliba dariiqada aan sax ahayn oo aan doorashada dadka ahayn ay ku soo saaraan iyagoo hantidii ummadda iyagoo isticmaalaya baawarkii ummadda iyagoo isticmaalaya ay ku soo saaraan weeye marka way iska caddahay arrimo badan baa jira laakiin annagu kalsooni waxaan ku qabnaa shacabka reer somalilan ugu dambeyn in gudoomiye haatan waxaa loo diyaargaroobaya qabsoomidii doorashada madaxtooyada shacabka somalilanna waxay awood u leeyihiin iminka inay soo doortaan madaxweynihii bedelile axmed maxamed maxamuud siilaanyo maxaa tale ee doonaysa inaad u gudbiso shacabka somalilan taladaan u gudbinaya waxa weeye horta marka ugu horeysa in la ilaaliyo nabadgelyada inay doorashadeenu ku dhacdo si nabadgelyo ah inaynu ogaano horta waxaynu doonaynaa waa wanaag xumaan maaha inaynu iska ilaalino wax kasta oo xumaan keenaya waxa ugu horeysa nabadgelyo darrada waxa ku xigta in doorashadii si xun oo aan magaranaysaa dee feer ahayn loo galo in qofku uu is yidhaahdo magaranaysaa doorashadii si khaldan u codee oo cidduu jecel yahay ugu codee waxyaabahaasoo dhammi waa waxyaaba runtii waddankeenna aan ku wanaagsanayn taas waa ta ugu horeysa aan leeyahay maaragtay doorashada nabadgelyaha inoogu dhacdo ta labaadee aan ku boorinaya shacabka reer somalilan waxa weeye war maanta waynu aragnay kulmiya halkuu wax marinayo maanta kulmiya wuxuu marinayaa inuu yidhaahdo shirbeeleed kii ha lagu noqdo dhowr iyo 90kii la marayay maanta wuxuu marinayaa kulmiya wuxuu marayaa inuu yidhaahdo guurtida iyo golaha deegaanka iyo golaha baarlamaankaba hala baabi'iyo ha lagu soo doorto nidaamkii beelaha waa fekerka uu kulmiya qabo fekerkaasi ma aha feker runtii dalka haruu wadaye waa feker dalka dib u dhigaya marka waxaan leeyahay laga digtoonaado doorasho xor oo xalaala ha la galo qof walba codkiisa waxa ku goosto hala la eego brogaraamka iyo barnaamijyada xisbiyadu kala leeyihiin iyo ashkhaasta ay keeneen xisbiyadu taariikhdooda iyo historygooda aad iyo aad buu mahadsan yahay daawadayaalkaasi waxa waa gudoomiyaha ololaha xisbiga mucaaradka cud ee heer qaran injineer axmed xirsi ducaale oo aan wareysi gaar ah kula yeelanay magaalada hargeysa wareysigan mid lamid inta ku kulmayno anigo cabdirasaaq gooda maxamed aadan ismaaciil iyo gudoomiyaha idinkaga tagay siyaasi nabadgelyo